قدرت على مركز لقي مادو أما إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون عاو وحال كان إذا كسو قد بينا يا وإذا لو ذاك الرضا أرنتي حالي فرحة لحيد أرين كدوان أرنتا سوى حوايا جيريدا كو إمادي ولاشين زهراء علي محمود زهراء علي محمود وقبر ولاشين أو صوماليا قيب كميدا كنو وليد قبر ناس أو صحن أو أرحان دراء اللو قد لي wadankii iyo dhulkii ay ku noolayd gabadha walaasheen waxay la mid tahay horta dadka dhimanaya bay la mid tahay oo ajashoodii iyo waqtigoodii ay soo dhamaatay oo waxa weeye ajashaadu hadday soo dhamaatayna kayfiyad kastood ku dhimataba waxa weeye laa yastaqdimuuna saacatan walaa yastaakhiruun kamana hormaraan kamana dimarayo qofku saacaddii rabbi subxaanahu wa tacaala uu ugu talagalay qofku kor laba kama hormarayo kamana dimarayo si walba oo loo dadaalo waxaan mar dhoweyd inoogu dhacday geeridii walaalkeen doctor maxamed xasan oo waddankii caalamka ugu amniga badnaa oo maraykan ah imaam isagoo ah business ku leh ummadda u ah liidha iyo hogaamiye u ah ummadda soomaaliyeed iyo muslimiinta kale ee waddanka ku noolba ayaa lagu dilay marka horta meesha aad ku nooshahay waa laga yaabaa inuu dee dhulku uu kala amni badan yahay laakiin waxaa laga yaabaa mararka qaarkood meel kastood ku nooshahayba inay xilligaagu markuu soo dhammaado balaaya kugu asiibto laakiin mar walba waxaa dhibku ku badan yahay meelaha dowlad la'aanta ah ee kala dambayntu ayna ka jirin meelaha noocaas oo kale ah bay inta badan dhibabku u badan yihiin walaashee marka zahra cali maxamuud waxaa ku dhacay geeri xanuun kulul runtii geeridaasi waxa weeyaan gabadha walaasheen ah inay rag soomaaliyeed oo welibana rag fara badanihi farax xumayn iyo kufsi ku sameeyeen sida wararku inagu soo gaarayaan la fiiriya waxay inoo sheegayaan inay gabadha markii farax xumaynta dadka faraha badani ay ku sameeyeen intaa inayna ku dhaafine gabadhii inay dileen waa muddo 30 beri ka hor ah markay dileenna ay jajabiyeen welibana jirkeedii iyo xubnaheedii meelaha qaarkoodna ay gabadhaas waxaan ognahay jirkeeda qaybo ka mid ah inuu jajaban yahay waxaan ognahay jirkeeda qaybo ka mid ah inuu go'an yahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun nabigeenu wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam waxa la iga nahiyay dadka aan dilay dilkoodu ii banaan yahay ee gaalada ah ee igu soo duulay inaan markaan dilo aan suura xumaynin oo dhagaha ka googoynin oo sanka ka googoynin oo meelihii calaamadaha ahaa hadhow dadkiisu ku fahmi lahaayeen inaana ku suura xumaynin oona googoynin ayaa la i amray innaguna nebigii noocaas ahaa ayaan ummaddiisa nahay oo khalaa'iqdiisii nahay oo dadkiisii nahay oon rumaynay oon raacnay miyayna falxumo ahayn iyo wax lala yaabo iyo dhaqan xun oo islaamka ka soo horjeeda oo soomaalinimadka ka soo horjeeda oo inay ceeb iyo liddi ku aynay gabadhi kula dhalatay inay hooyo kula dhalatay inay habaryar aad leedahay eedda leedahay oodan jeclayn intaaba inay dhibaatooyinkaasi soo gaaraan xaqiiqatan waxaan idiin sheegayaa walaalayaal dadkaas iimaanka horta ka tegey nebigeennu wuxuu inoo sheegay sala allahu calayhi wasalam qofka wax hadaya qofka sinaysanaya qofka wax dilaya qofka xumaanta ku dhacaya isagoo mu'minoo iimaanku ku jiro dhibku kama dhaco marka ugu horaysa iimaanka waxaa laga saaraa halkaa madaxiisa ah ee sare ayaa laga saaraa oo ka baxaa iimaankii oo ka maqan oo madaxiisa ka baxay markaasuu zinadii samaynayaa dilitaankii samaynayaa kufsigii samaynayaa xatooyadii samaynayaa dadkani markay samaynayaan waxa u qurxinayaana waxa weeye shaytaan wey shaytaan baa wuxuu leeyahay gabadhan faaxishada ku sameeya xumaantan ku sameeya qofkan dil qofkan dhac qofkan wax ku samee kadibna sidan samee lagu ogaan maayo cidina kuma ogaanaysa markaa adduunka marka iskaga tabashlee adiga oo cidina ayna ku ogeyn laakiin markuu dhibka geliyo walwal iyo wuxuu ku ridaa walbahaar iyo shallayto iyo dhiilo ayuu ku ridaa waad garanaysaa labadii ibna aadam uu dhalay markay isdileen kii wax dilay markuu walaalkii dilay meelna wuu qaban waayey mulug iyo walbahaar baa ka soo haray yaanaan waxba mawduuca kasii
bixine walaalayaal waxa ayaan darro ah gabdhaheennii soomaaliyeed ee inala dhashay intaan xumaato uula qasadno oo kufsi uula qasadno oo welibana mid iyo laba ahayn ee rag fara badani kufsi wadareed ku sameeyaan haddana in si xun loo dilo oo loo googooyo oo jidhkeedii si xun loo jejebiyo wallaahi waxa weeye ayaan darro waxayna tilmaamaysaa dilkii gabadha lagu sameeyey inuuna mar ahayn ee dhowr jeer lagu sameeyey markii jidhkeeda la googooyey baa lagu sameeyey markii sharafteedii iyo cirdigeedii la bannaystay iyo sharafkeedii iyo jidhkeedii la bannaystay asturnaa ayaa la dilay markii la jejebiyey ayaa la dilay markii jidhkeeda la googooyey ayaa la dilay dhaqankaasina waa dhaqan muslimka aad uga fog hadduu kufsi dhaco waa camal shaydaan waa xun yahay laakiin hadduu dhaco ma waxaad garan weyday ood fahmi weyday walaashaa inaadan suura xumaynin dabcan shaydaan baa ku yidhi waad ku qarsoomi ee sidan u dil markay kufsiyada wadareedku dhacayaanna inta badan waxay ka bilowdaan baahi maaha uu qofkani baahi u geystay zinadan iyo xumaantan hal qof buu samayn lahaa waxaan iyaa samayn lahaa inay mustaqbalka ka dilaan inayba lafihiisaba adduunka ka dhaafiyaan oyba dilaanba kadib shaydaanka ugu sheekeeya xumaantaasay ku wada suubiyaan marka waxaan leeyahay inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun waalidka aabbaha aad aragtaan ee dul fadhiya qabriga wuxuu leeyahay runtii wuxuu leeyahay qabrigan kama kacayo ilaa aan cadaalad helo gabadha walaasheena markii la dilay 30 beri ayay ku jirtay firiijka iyo meesha dadka lagu ilaaliyo meydka ah kadibna dowladda ayaa amartay in la aaso gabadhii cadaaladana dadkii lasoo hortaago haddaba aabba wuxuu codsanayaa uu inoo sheegayaa inuuna qabriga gabadhiisa ka kacaynin dushiisa qabriga ilaa cadaalad gabadhayda saara cali maxamuud waxaan doonayaa gabadhaydu inay hesho cadaalad runtii waa arrin dhiilla leh aabba gabadhii u soo kortay ee uu soo koriyey intii xumaan lagu sameeyey aan sidii lagu dhaafin ee dil loogu daray jidhkeedii oo la googooye loogu daray waxaa kaloo ayadana dhibaatadeeda leh oo murugo kale leh balhooye iyadana fiil waxay isla dhacaysaa dhulka waxay isku shubaysaa carrada diinteennu waxay tidhi qofku ha sabro laakiin runtii xaqiiqatan dumarku way nugul yihiinoo mararka qaarkood markay dhibkanoo kale la kulmaan sida raggu u adkaysta uma adkaysan karaan waxaa la yidhi dumarku way ka sii daran yihiinoo ayagu dee hooye way ka daran tahay runtii marka wakaa waad u jeedaan 30 beri kadib ayaa gabadha maanta la aasay oo cadaaladda la raadinaya dadkii in la helo dadkii noocaas ahaa ee gabadha dhibaatada u geystay qayb ka mid a gacanta dowladda ayay ku jiraan oo baadhid baa ku socota qaarna waa lagu daba jiraa insha allah runtii xaqiiqatan qofku hadduu intuu dhibaato sameeyo uu u maleeya inuu dhuuman karo u baxsan karo runtii ma baxsan karo gabdhihii la kufsaday oo dhan dadkii kufsaday waa uun la wada laayey soomaaliya kuma waana qaataan kuwii shalay saasoo kale gabdhaha intay u dilaanee kusoo tuuri jireen laamiga iyo meelaha ayadoo bac ku jira kusoo tuuri jiray haddana la wada helay lianna dhiigga isma qarinayo cadaaladda ilaahay baa ku hor keeni waana lagu fashilin adduunkana kaga dambayn maysid xanuunkay dhandhamisay waad ku dhandhamin aakharana ciqaab iyo cadaab baa ku sugaya ilayn maadan ka toobad keenin maadan isa soo dhiibin maadan dhihin hala ii qisaaso marka walaalayaal runtii xaqiiqatan ilaahay waxaan uga baryaynaa wax kaloo dhahna ma jirtee gabadha walaasheen ah dhibaatada loo geystay ilaahay naxariistii janna ha siiyo khalad ka soo dhacay hadda ka hor intaa dembiga ha kaga dhaafo iyo dhibaatada loo geystay iyo jirdilka loo geystay waalidkana waxaan ilaahay uga baryaynaa aabbahaas cali waxaan ilaahay uga baryaynaa iyo gabadha hooyadeedba sabir iyo iimaan inuu ka siiyo ilaahay sabir iyo iimaan inuu ilaahay ka siiyo subxaanahu wa tacaala waxaan leenahay dardaaran sabra nabigeennu calayhi salaatu wassalaam sumaya markii la dilay ee la ciqaabayey markii yaasir markii wiilkeedii la ciqaabayey nabigeennu muxuu lahaa sala allahu calayh wasalam sabran
yaa aala yaasir wuxuu lahaa nabigeenu sala allahu calayhi wasalam sabran yaa aala yaasir faina mawcidukum aljanna faina mawcidukum aljanna ballanka inoo dhexeeya idinka iyo annaga reer aala yaasiro waxa weeye jannada wey reer aalu yaasir waxay ahaayeen wiilkii iyo hooyadii sumaya iyo aabbihii waxay ahaayeen ahlu janna nebigu wuxuu yidhi ballankiinu waxa weeye janno